munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayuu xilka si rasmi ah ula wareegay danjiraha cusub ee dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Siyaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa xilka ku wareejiyay danjiraha cusub isagoo danjira Tarsan mid ugu soo wareejiyay xafiisyada kala duwan ee safaaradda. barqanimadii hore ee saaka ayuu danjira Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ka gudoomay waraaqiisa aqoonsi ee safiirnimo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta. Siyaha xilka safaaradda ahna qunsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo ugu horeyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in safaaradda uu ku soo dhaweeyo danjira Tarsan. ugu horeyn waxaan u hambaleynayaa safiirka dawladda federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo maanta si official ah ama si cad aan xilkii muddada 20 bilood ahayd ee siyaha safaaradda aan hayay aan ugu wareejiyay safiirkeena cusub Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. marka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ku dhaqan dalka Kenya waxaan u sheegayaa safiirkiini muddada aad sugayseen waa idin yimid maanta ayaa si rasmi ah warqadiisa loo gudoomay madaxweynaha dalka Kenya isla maantana xafiiskii markuu ka soo baxay madaxtooyada xafiiskii yimid xilkii safaaradda ayuu la wareegay. marka waxaan idin rajaynayaa insha Allah taala waxaan idin ka codsanayaa marka hore in safiirka loo soo dhaweeyo si kal ilaab ah loona duceeyo in mas'uuliyadda ilaahay siiyay in maaragtay ilaahay inuu u fududeeyo. safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ee dalkan Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa xusay in safaaraddu ay qabatay howlo wanaagsan ayna halkeeda ka sii wadi doonaan. Consular waa mahadsan tahay adiga iyo shaqaalaha ka shaqeynaya safaaradda ee muddadaas soo halgamay aad baan ugu mahadcelinayaa. runtii safaaraddan saan u maleynahay ma aha waxaan isdahay safaaraddan yar oo iska baaba'san oo ظروفته هيسان أرك دونا لكن وحامقة سفارة قرحان أو نظيف أد نظيف أنت اللي دون أنت تبرتو ده حقاقي سن أو دمو حقن لقيا بيبا إن أي كقرحان تهي مركا أو شاس وناكسن أتقبتين أدبان يكون مهد علنا هيا مثل بعد شعبك الصوماليات يقول كم كنا حنو شيء هيا سفارة دان إني سفارة دودي تهي ujeedada safaaradda loo furay waxa maslaxadooda inay u adeegto maslaxadda dadka Soomaalida ee halkan ku nool inay u adeegto waxaan rajaynaynaa marka maslaxadaas inaan noqono kuwa u adeega maslaxadaas dadka kuwa u adeega inaan noqono kuwa karaameeya dadkooda oo karaamo ay ku leeyihiin. Umar Aaqil SNTV. bandhig carweedkan wax soo saarka warshadaha ciidanka asluubta oo ay sameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar ayaa waxay iskugu jiraan qalabka fadhiga, alaabta jiifka, miisas, kuraas iyo waliba gaari aan xabad karin oo ay sameeyeen iyo qalabka hidaha iyo dhaqanka taas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. bandhiga wax soo saarka warshadaha ciidanka asluubta ayaa waxa uu socon doonaa 3 maalin waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xeerlaaliyaha guud ee qaranka, taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo asluubta iyo mas'uuliin kale. qaar ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Xamar kuwaas oo qayb ka ah maxaabiista ka shaqeysa warshadaha wax soo saarka ayaa waxay sheegeen in ayagoo xabsiga dhexe ku jira ay fursad u heleen in reerahooda ay ku maareeyaan dhaqaalaha ka soo xarooda shaqada. way ogolaadeen sida kabaha balooniga lagu dheelo, buumooyinka balooniga lagu dheelo, nigisyada, fulaanadaha oo kale, sigisaanta, wax dhararka fudud oo xabsiga loo ogol yahay inaan keeno aan ku baabashtiro aan ilmaha wax ugu dhigo. anu waxaan dareemayaa in horumar aan maantaas gaaray waayo wixii aan anigu gacanteeda ku sameeyay shalay aan la aqoonin baa xabsiga dhaxal ay keenay maantana waxaan gacanteeda ku sameeyay bandhig la taagnahay. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in bandhigan uu socon doono 3 maalin qalabkan uu yahay qiimo jaban isla markaana mashaariic badan uu talisku wado. waxaa kaloo aan maanta soo bandhigaynaa qalabka gaadiidka ama gaadiidka sameyntiisa waxaad la yaabi doontaan oo hadda idiin sheego aad la yaabi doontaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed inay dib u habeeyeen oo farsameeyeen baabuur aysan xabadu karin ama nooca loo yaqaano bullet proofka kaasoo maanta ku arki doontaan
barxadda goobtan aanu xafladda ku samaynayno bandhigaasoo socon doona muddo 3 maalmooda oo maantay barri iyo saa dambe annagoo dadweynaha ay u furan tahay lacag la'aanna ay tahay lagu soo galayo qofkii dalbada qalabkaas meesha lagu arko ama mid ku raba asagu naqshadiisa inta carwada socotana loo samayn doono qiimo jabis aad u weyn. wasiirka cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay ku howlan tahay dib u dhiska xarumaha ciidanka asluubta. maanta waxaan u jeednaa qalab kala duwan ay soo saareen looga baahan yahay shacabka Soomaalida meel kasta ay joogaan inay ka faa'iideystaan intii meel kale u raadsan lahaayeen waa barnaamijkii isxilqaanku qeybkii yahay waa isxilqaameen waxa ay shacabku u soo saareen wixii ay soo saareen waa in la iibsadaa. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku dheeraaday waxqabadka asluubta isagoo ugu dambeyntii daafuray bandhiga wax soo saarka ciidanka asluubta. ciidamada asluubtu ma aha ciidamo xabsi waa warshad soo saarta wax fara badan. ciidamada asluubta waagii hore waxay ahayd hay'ad wax soo saar bay ahayd meelo fara badan waa beeraha waa xoolaha waa warshadda yacni wax kasta oo wax soo saara waa ku jireen haddana raadkii ayay hayaan. Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. magaalada Jigwa caasimada dawladda deegaanka Soomaalida waxay ka mid tahay magaalooyinka kobca iyo koritaankooda xawliga ku sugay dalkan Itoobiya taas oo dadweyne tiro badan ay ku soo hiranayaan iyagoo daneynaya dhinaca deganaanshaha iyo nolosha isla markaasna uga qayb qaataan fursadaha dhinaca maalgashiga ganacsiga kala duwan iyo waliba deganaanta iyadoo ay laga maarmaan tahay in hadba koritaanka magaalada uu barbar socdo qorshahaaga si ay bulshadu uga faa'iideysto adeegyada horumarinta asaasiga iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha jidadka biyaha isgaarsiinta iyo waliba adeegga leydka 24 saac isla markaasna loo baahan yahay in laamaha bahwadaagta si wadajir ah u diyaariyaan kaabayaasha horumarka iyo waliba kuwa dhaqaalaha isku dhafa si ay magaaladu u noqoto mid ku habboon dhinacyada kala duwan ee adeegga iyo waliba nolosha asaasiga. haddaba xukuumadii hore ayaa waxay magaalada Jigwa ka fulisay barnaamijka guriyeynta waxaana ka mid ah mashruuca guriyeynta ee dulqaba iyo waliba 100 guri ee ka dhisan garab cas si loo dhimo baahida dhinaca guriye la'aanta hase yeeshee waxa isqabaneen muuqaalka qurxoon ee guryahaas iyo waliba leyd la'aanta ka jirta taas oo bulshadaas ku noqotay walaac fara badan inay nasiib u helin inay ka faa'iideystaan adeegga leydka 24 saac kana mid yihiin xaafad ka tirsan caasimada dawladda deegaanka ee magaalada Jigwa. leyrka yaa noogu daran mugdi weeyaan xaafadaha habeenka gobolka ma ku dhawaaba cabsiba dhanka adeegga leyrka aad baan horta ugu dhib qabnaa muddo 5 bilood aan toos u deganahay bishii 6 adeegay noo socotaa marka run ahaantii leyrka iyo biyaha saacidinaga haddaba si aan wararkan gudbinayna u noqdaan mid xaqiiqo oo dheelitiran waan xilli habeen aan tagnay xaafadaasi garab case ay ka dhisan yihiin 101 guri oo xaafad ka mid ah albaabka hanu garaacnay waxaana la kulanay Naciimo Surur oo dhigata fasalka 8aad oo duruusta ay dhigato ku akhrisanaysa shamaca la shito waana tan iyadoo ka hadlaysa dhibaatada dhanka dhaylaanta. cashirka ma akhrisan karayno indhaan waxaan markaan qoranayno dhibaataan farqi weyn ayaa u dhaxeeya leyrka iyo shamaca. cashirka oo nacaadu xaftiin iyo caado noo arkaynin iyo indhaxan baan noo socnaa habeenkii lama bixi karo waa la cabsanayaa tuugta meelaha istaagso dadka leenaysa maxaan ku leedahay shamacana inna wax kuma akhrisan karayso. halkan aan ku suganahay waa guriga hooyo Sakeena Sheekh Cabdi ay ka degan tahay xaafada garab cas ee 101 guri iftiinka ay isticmaalaan waa shamacan hadda i hor yaala annaguna waxaan isticmaalaynaa waliba waa iftiinka moobilada si aan wax ugu kala aragno. hooyo Sakeena Sheekh Cabdi waa hooyada dhashay Naciimo iyo waliba 9 caruur oo kale waxayna leedahay leyd la'aantu waxayna baday inay caruurtu weyda ilays ay wax ku akhristaan habeenkii mugdiga awgeed waxaan ka cabsaynaa durwaaga iyo ayda ma haysano madowgaasaan fadhina shamacaas ciyaalku wax noogu bartaan habeenkan gari waa inaad boqos shamaca soo iibso dadku waxay kala isticmaalaan cidii magaran iibsan karta janaatar bay iibsatay oo haysataa cidii kalena madowgaas fadhidaa habeenkii cabsi baa jirta waraabaa jira ayga dadka eriyada
gidaarada carruurta uma bixi karto cooshadaha agtanada wax kama soo iibsan karaan maxay leeyahay tuugii baa jira habeen kasta waan cabsanaa wallaahi khalkhal wixii shanqadha yarba waxaan moodnaa tuug noo soo dhacay xukuumadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay leerkana soo gaarsiiso dhibaatadaasaan haysata habeenkii ma bixi karayno cabsi iyo madow maxay leeyahay cooshadii kama soo adeegan karayno carruurtii waxbarashadeedii kaasoo wax ku akhrisato ma haysato wax ku qorato xukuumadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay leerkana la soo gaarsiiso degdeg waliba noo soo gaarsiiso haddaba si cabashadaasi looga jawaab bixiyo ayaa waxaa noo suurto gashay inaan wax ka weydiino mudane maraawi booyaalow oo wakaaladda quwadda laydhka ee laanteeda deegaanka soomaalida u qaabilsan dhinaca fidinta laydhka sababta keentay inuu daaho laydhgelinta xaafadaasi ገርባሳ የ101 ቤቶች የክልሉ መስተዳድር ከተከፈለ በኋላ 101 guri ee ku yaala xaafadaasi garab case kadib markii xafiiska maamulka deegaanku ay bixiyeen lacagtii leergelinta shaqadiina aan bilowday waxaan ogsoonahay in deegaanka ay la soo daristay xasilooni darro 2 bilood ilaa 3 bilood waxa dhacday in aan shaqadii joogsato inta kadib markii xasiloonidii deegaanku dib u soo noqotay waxaan la xiriirnay shaqaalihii meel kasta oo ay ku sugan yihiin waxaan bilownay shaqadii annagoo ku bilaabayna haynta qalabka aan haysano tiirasho loogu talagalay tabiyaha iyo waliba meelaha aadka u hooseeya ee leergelinta u baahan እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የምናደርገው ነገር ምንድነው ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸውን ነገሮች ፕራዮሪቲ እየከፈልን እንሰጣለን ማለት ነው ዶክተር አብዱልፈታህ ሼክ ቢሒ wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha deegaanka Soomaalida ayaan wax ka weydiinay dhibaatada dhinaca laydh la'aanta ee ka soo yeeraysa qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan xaafadaasi magaalada Jiga ka tirsan ee garab case waxaan ugu maqaalaa shacabku guriyihii oon diyaar ahayn oo marka uu farta laga qaado inay iska wada galeen halku hadda wuxuu noqon karaa in iyada oo cadaaladna loo samaynayo shacabka kale magaalada xaafadda kaliya ma aha waxa korontada la kuwii korontada haystay ka go'aysa maalin walba ani hadda meesha aan deganahay bila koronto ahayd maanta marka waxa horta waa dib weyn baa jira laakiin inaga oo dadka kalena cadaalad u samaynayna xaafadana in xal loo raadiyo la dhaho lagu la xaajoodo meeshan 100 qoys ciyaar ma ah oo intaas caruur leh haday caqabado jiraan caqabadahaas cid ay qoysaysan laga xaalo iyagana culays aan ku saarno inay dadkaas u soo galiyaan halkan aan ku sugannahay waa bartanka xaafadda garab case ee 101 guri ee xukuumadda hore ka dhistay barnaamijka guriyada guuxa dhagihiina ku soo dhacaya waa injiinada loo isticmaalay inay bulshadu u adeegsato inay hesho iftiinka ama ilayska nuurka saacadu waqti xaadirkan waxay ku beegan tahay waa xilli 8:00 habeenimo ah iftiinkan aad arkaysaan dadku intooda badan waxay isticmaalayaan waa mootorada isticmaala shidaal munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayuu xilka si rasmi ah ula wareegay danjiraha cusub ee dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan siyaaya safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa xilka ku wareejiyay danjiraha cusub isagoo danjira Tarsan mid ugu soo wareejiyay xafiisyada kala duwan ee safaaradda barqanimadii hore ee saaka ayuu danjira Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ka gudoomay waraaqiisa aqoonsi ee safiirnimo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta siyaayay xilka safaaradda ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo ugu horeyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in safaaradda uu ku soo dhaweeyo danjira Tarsan ugu horeyn waxaan u hambaleynayaa safiirka dawladda federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo maanta si official ah ama si cad aan xilkii muddada 20 bilood ahayd ee siyaaya safaaradda aan hayay aan ugu wareejiyay safiirkeena cusub Maxamuud Axmed Nuur Tarsan marka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalka Kenya waxaan u sheegayaa safiirkiini muddada aad sugayseen waa idin yimid maanta ayaa si rasmi ah warqadiisa loo gudoomay madaxweynaha dalka Kenya isla maantana xafiiskii markuu ka soo baxay madaxtooyada xafiiskii yimid xilkii safaaradda ayuu la wareegay marka waxaan idin rajeynayaa insha Allah taala ama waxaan idin ka codsanayaa marka hore in safiirka loo soo dhaweeyo si kal ilaab ah loona duceeyo in mas'uuliyadda ilaahay siiyay in maartay ilaahay inuu u fududeeyo safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ee dalkan Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa xusay in safaaraddu ay qabatay howlo wanaagsan ayna halkeeda ka sii wadi doonaan consular waa mahadsan tahay adiga shaqaalaha ka shaqeynaya safaaradda ee muddadaas soo halgamay aad baan ugu mahadcelinayaa runtii safaaraddan saan u maleynahay ma aha waxaan isdhahay safaaraddan yar oo
iska baaba'sanoo duruufta haysaan arki doonaa laakiin waxaa muuqata safaarad qurxan oo nadiif ah aada nadiif u ah intii la doono intii tabartooda ah hagaajisan oo wadamo xoogan laga yaabeeba in ay ka qurxan tahay marka hawshaas wanaagsan aad qabateen aad baan idinkugu mahadcelinayaa midda labaad shacabka soomaaliyeed ee dhulkan ku nool waxaan u sheegahayaa safaaraddan inay safaaradoodii tahay